ciidanka badda way kala xoog weyn yihiin. ciidanka dhulka meesha la keenayaa looma keenayo inay dagaal galaan, waxaa loo keenayaa keliya inay difaacaan ciidanka cirka imanaya magaalada Berbera. ciidanka baddana waxaa loo keenayaa inay ciidanka cirka ka difaacaan waxa loo wixii baddeenaa imanaya. 850 kilomitir weeyaan xeegteedu. 850 kilomitir ba waxa la keenayaa maraakiib dagaal oo haddii badda ciidanka cirka laga soo weeraro difaaca. xeegadeena oo dhan si arrintaas u suurtoodo waxaa lagu rakibi doonaa reydaaro. reydaaradaas waxay sheegi doonaan wax alla wixii dhaqdhaqaaq badda samaynaya oo dhan way sheegayaan, wixii dhulka samaynaya way sheegayaan, oo kuwa oo dhan waxaa lagu rakibi doonaa reydaaro. reydaaradaasi dhulka iyo xeebta lagu samaynaya labaduba waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqa badda ka imanaya iyo ka bariga ka imanaya, labadaba way la soconayaan si ciidanka cirku awood u yeesho markaa inuu burburiyo kusoo weerartaa. diyaaradaha la keenaya xoogooda horta sida imaaraadkeeda la socotiimeeda waxay leeyihiin 368 diyaaradood bay leeyihiin. 368 ka diyaaradood waa ciidanka cirka oo keliya, maaha Emirateska diyaaradaha la yidhaha maaha, waa ciidanka cirka. 4,000 oo qof weeyaan ciidankooda staffkooda. diyaaradahaas waxay ka kooban yihiin kuwa transporta, kuwa trainga oo lagu traingareeyo taariikhdooda iyo kuwa dagaal. diyaaradaha la keenaya ee lagu dagaalgelaya Berbera waa laba nooc. labada nooc waxa weeyaan Mirage 2000 diyaaradaha la yidhaha Faransiisku sameeyo iyo diyaaradaha la yidhaha F-16 ee Maraykanku sameeyo. diyaaradaha la yidhaha Mirage-ku waxay awood u leeyihiin inay 60,000 oo feet ay dhulka ka kici karaan. marka dadka ayaan been loo sheegin in la xadidan yahay bayska laga bixinaya Berbera. diyaaradaas markay dhulka ka kacday masaafada intaa leeg ay tagto ay ku soo noqonaysa airportkeedii, baaxadda ay ka soo wareegaysaa kama yaraanayo 70 kilomitir oo hargeysa dusheeda ay ka wareegi kartaa. diyaaradda F-16kuna waa la mid. waxaan markaa idiin sheegayaa diyaarad kasta oo kacda oo dhulka ka kacda markay kacayso waxay ku kacdaa wax la yidhaaho flat plan. iskama kacayo ninka pilotka diyaaradda wada, wuxuu ku kacayaa oo farta laga saarayaa. marka garoonka ka kacdo haddaad ku soo noqon kari weydo garoonkan oo degi kari weydo meelbilaayo deg baa la leeyahay. markaa bayska Berbera laga bixiyo kuma koobna Berbera ee hargeysadan aynu joogno nafteeda cilmiyan ayaa ku jirta. waayo hadduu degi kari waayo Berbera oo 4,140 mitir ah, waayo laba diyaaradood ama 3 ama 4 baa mar kula wada kaca diyaaradaha dagaalka. hadduu isdhaho garoonkii ku soo noqo mid taariikh markaa kii labaad meeluu degaama jirto. hadduu kii waayo ranweyga Berbera waa mid keliya, hargeystuu iman karaayo 3,500 oo mitir ah waa la degi karaa. environmentka dhulka diyaaradahani waa diyaaradaha qaada hubka la yidhaaho chemicalka. waa loogu talagalay imika Middle East-ka meel kasta in lagaga dagaalamayo hubka. hadduu xabad intuu qaado ay xeegaheennaa ku dhacdo waxalla waxa kalluun baddaa ku jira wuu sumaysmaya. hadduu beriga ku dhacana dad xoola dhaqataa waynahay oo dhulkaasoo dhan xoolaha jooga way dhimanayaan hadday cunaan. markaa dhibaatooyinka intaa leeg ay leeyihiin ciidamada cirka ee imanaya Berbera. talabaad waxa weeyaan hawadeenna innaga dusheenna diyaarado fara badan baa ina dulmar. ma aqaan sida dowladda imika maanta Soomaaliya ka talisaa uga xisaabtanto, laakiin hargeysa waxaa la yidhaahaa marka la duulayo compulsory checkpoint baa la yidhaha. diyaarad kasta oo dul maraysa magaalada Berbera waa inay taawarka ama magaalada hargeysa waa inay taawarka hargeysa isku sheegtaa 10 minit horteed intaanay xafka Soomaaliya soo gelin. ma aqaan inay cilmiyan lacagta malaayiinka dowladda ee laga qaado diyaaradaha dhulkan dul maray ee dowladdan ay sheegeen kale kama warhayaan. laakiin waa mid loo baahan yahay inta la cilmiyeeyo oo International Civil Aviation Organization-ka lagala hadlo waxaynu xaq u leedahay inaynu helno ayaynu xaq u leedahay. waxaa kaloo doonayaan idiin sheego hadalkeeda ku soo gabagabeeyo. waxaan barbar dhigi kari lahaa bayska laga samaynayo magaalada Berbera ee Eritrea laga sameeyo. magaalada Casab la yidhaha waxay ku leeyihiin bays. waan joogi jiray anigu Casab, waan ka tegi, waan ka duuli jiray.
dhererkiisu waa 3,500 mitir weyn. halkaa waxaa geeyey diyaarado. Eritrea way xisaabtantay, waxay yidhahdeen ma u baahanahay mise uma baahnin casar. waxay ogaadeen inaanay casar u baahnayn, laakiin waxay ku xidheen waxaan caqligaa gabdhoy keeni karin. ciidanka Eritrea 70,000 kor u dhaafay. waxaa loo wacaa kharash ku baxa waxaa bixisa Emirates. waxaa loo wacaa shidaal ku baxa Eritrea oo dhanna waxaa bixisa Imaaraat. airportka Asmarana waxay ka dhigtay international airport. 1,117 kilomitir dhexdiisa u jirta magaalada Asmara. marka waxba ugama baahna kaana laami bay ka dhigayaan. waxay kala soo degaan magaalada Musawac oo 113 kilomitir oo keliya u jirta oo laamiya. marka way xisaabtamay, inagu waxaana ku xisaabtanay ma garanayo. istaraatiijiyada magaalada Berbera ee caalamka ugu fadhida ayay sheegay shatarka ay Maraykanku diraan spaceka sare loo diro 3 meelood buu dalka Maraykanka fadhiistaa. wuxuu fadhiistaa Florida, wuxuu fadhiistaa New Mexico, wuxuu fadhiistaa California. markuu hawadeennan soo galo 150,000 oo feet uu dhulka u jiro ayuu ka soo bilaabaa distaankiisa inuu bilaabo inuu soo dego baddan Indian Oceanka. halkay ka bilaabato wuxuu soo dulmaraa magaalada Berbera. Berbera waxay u xisaabsan tahay NASA inay noqoto alternate haddii shatarka dhibaata ku dhacday iyo Berbera dego. laakiin inagu maba oginba. kolkii hore dowladdii hore Maxamed Siyaad Barre markii Maraykanka la isku xukumay shatarka waxa uu ahayd alternate magaalo ku taala galbeedka India. laakiin markii uu ahaa sanadku 1988 ilaa 1991 dowladda Maraykanku waxay bixin jirtay 40 milyan oo dollar ay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka siin jirtay si shatarku emergency landing ugu sameeyo hadday wax ku soo baxaan markuu Indian Oceanka duulaya. alternate kiisa kale waa Italy, waa Spain, waa maxay ahaydey Senegal. iyo dabeedna markuu North America gaalo waa xeebaha Canada ilaa uu Florida ka tegay. meesha waa meesha qiimaha inoogu fadhida, laakiin inagu aynu nidhi bilaashooda ugu bixinay. waana si daro annaga intaasaan kusoo gabagabeynaya. wasalaam calaykum.